رئيس الوزراء روبله oo sheegay in madaxweyne Farmaajo maanta isku dayay inuu sameeyo afgambi military taliyaha ciidanka xooga dalka oo xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada oo maanta weeraray xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto cid kasta oo ka danbeysay afgambi ay sheegeen inuu fashilmay ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka gadoodsan tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo caawa soo buux dhaafiyay isgoyska dabka ee Muqdisho markale habeen wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa 27 bisha December sanadku waa 2021 Cali Ibrahim Cabdilaahi ayaa warka caawa soo saaray Cabdirashiid Ibrahim Cali ayaana warkaas oo dhan la diyaara وماسنتهاي ورينا حسن نسيب محمد بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka faahfaahsan Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay madaxweyne Farmaajo maanta isku dayay inuu sameeyo afgambi military warkan waxa la diyaar horiyaheena Hanad Maxamed Karaama محمد حسين روبلي رئيس الوزراء حكومة الصومالية أرشد جرات كوقبتي حافيزكي سايا ساده وهدلي حالدii ugu dambeeyay dalka isagoo ka jawaabay tilaabadii uu saaka qaaday madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ciidamo ka tirsan xafiiskiisa ay weerar ku soo qaadeen xafiiska ra'iisul wasaaraha tilaabadaas ayuu ku tilmaamay ra'iisul wasaare Roble in ay ahayd mid lagu afgambinayo dawladnimada iyo dastuurka dalka u yaala inkastoo markii dambe isku daygaas uu fashilmay رئيس الوزراء روبلي ayaa shaaca ka qaaday in Farmaajo uu ku tunto shuruucda dalka u yaala kuna xadgudbay dawladnimada dalka kadib markii uu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiiskiisa iyo sidoo kale halka ay ku shiraan golaha wasiirada waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in talaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dawladnimada dastuurka iyo sharciyada dalka u taala Farmaajo ka soo inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeedada uu ka leeyahay talaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah si la mid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay'adaha dawladda isaga oo aan haysan sharciyad waxa shacabka Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas'uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay'adaha kala duwan ee qaranka taliyaasha ciidamada dalka ayuu dhamaantood faray ra'iisul wasaare Roble inaysan ka amad qaadan karin madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ee Farmaajo isagoona si adag ku amray ay si toos uga marqaataan xafiiska xukuumadda sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si cad u sheegay in Farmaajo uu la mid yahay musharaxiinta kale ee doonaya inuu u tartamaan shaqada madaxweynimo ee dalka isla markaas uu saxba dheereen waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u cadeynayaa saa darteed musharax ayaa tahay geesu istaag sida musharaxiinta kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo inuu hay'adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dawladnimada haddii uu waayo dantiisa shakhsiga ah taasoo ah waan booga ama waan banada aqliga ha shaqeeyo Soomaaliyeed ama saan rabo hal la yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeynayso shacabka Soomaaliya ayuu la wadaagay in Farmaajo uu si rabin dawladnimo iyo dastuur toona isagoo hadalkiisa sii raaciyay in shacabka Soomaaliyeed ay si gooni ah ula socdaan xaaladda dalka waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagu kala wareego si looga baxo akirnaanta siyaasadeed ee uu dalku galiyay madaxweynihii hore aniga ka shakhsi ahaan waxaan hortiina ka cadeynayaa in aan marno u dul qaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo in la dhaco in lagu takrifalo in sida la rabo laga yeesho waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho waa xaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebel kursigan iska leh kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho anigana diyaar uma ihi inaan ummadda Soomaaliyeed sidaan hore uga ballan qaaday uguna dhaartay in gacanteedii ama gacanteeda lagu cuno ama dambi lagu galo ay cid kale uga faa'iideysato saa darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale u cadeynayaa doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan oo cadaalad ah loona siman yahay shacabka Soomaaliyeed ma u sheegaya musharax kastan u sheegaya in iimaanka lagu qabo doorashadan waa aqoon isku diib cidna kama yeelayno in kaligeed ay
qoriga haysato halhayska maanta waa doorashaha afgembi maya kadib jawaabta uu bixiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble magaalada muqdisho ayaa haatan laga dareemayaa jawi ciidan iyadoona magaalada lagu arkayo qaybo ka mid ah ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo taageersan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubnaha muduga musharaxiinta Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin deegaanka ee saraakiil ciidan ayaana soo gaaray xafiiska ra'iisul wasaare rooble iyadoona uu la qaato kulmo kala duwan kulmadan ayaa dhammaantood la isla gartay in la sii wado dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka si loo dhameystiro doorashada xildhibaanada aqalka hoose madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Farmaajo ayaan ilaa hadda ka jawaabin tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare rooble waxaase la sugayaa waxa xiga ee filla Soomaaliya ay kaga falcelido hadalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen rooble waa mahadsantahay wariyeena Hanad Maxamed Karaama taliyaha ciidanka xoogga ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada ee maanta weeray xafiiska ra'iisul wasaaraha ilo wadaadyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage uu xilka ka qaaday taliyihii ciidanka guutada madaxtooyada Xasan Aadan Dhicis waxaana xilka loo magacaabay gaashaale dhexe Axmed Maxamed Xasan Axmed Geel sidoo kale xogta ayaa waxaa la soo warinayaa in taliyaha ciidanka madaxtooyada Xasan Dhicis lagu eedeeyay inuu qaatay amar qaldan iyo in uu dalka geliyay qatar amni daro oo halis ah madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in uusan bixin amarka in ciidanka ay ku galaan xafiiska ra'iisul wasaare Rooble iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka jira magaalada caasimadda Muqdisho markan haddii aanu eegno xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabo ka qaadi doonto cid kasta oo ka dambeysa afgembi ay sheegeen inuu fashilmay Yuusuf Macalin Muuse ayaa war kala diyaar ah wasiirada amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo gaashaadhiga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka hadlay xiisada u dhaxaysa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa ka hadlay tallaabadii uu qaaday madaxweyne Farmaajo wasiirka amniga xukuumadda Rooble Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu sheegay in tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan shakhsiyaad ku howlan qalqalgelin iyo dhibaateynta xafiiska Rooble sidoo kale wasiirka ayaa wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay afgembi uu sheegay in Farmaajo uu isku dayay isagoo adeegsanaya ciidanka qaranka wasiirka ayaa dignin u diray in shakhsiyaad uu madaxweyne Farmaajo hore uu qanciyay in ay afgembi sameeyaan ay hadda ka baxeen garabkiisa sida uu hadalka u dhigay dacdadii xalay ilaa maanta ka dhacday dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo inuu dalka ka dhacay xalay ilaa saakay isku day afgembi balse dhicisoobay gembigaas waxaa soo abaabulay oo hormuud ka ahaa madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku weeraray ciidamo asiga ilaalo gaar u ah oo asiga si gaar uga amar qaatay ra'iisul wasaarihii xafiiskii iyo qayb kamida ama qaar kamida xafiisyada golaha wasiirada nasiib wanaag kadib markii ay ka hor yimaadeen afgembigaas qaar kamida ilaalada madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybo kale oo kamida ciidamada qaranka waa uu dhicisoobay intii lagu soo qanciyay in badan oo kamidana dib ay kaga laabteen afgembigii ay ku howlanaayeen waxa jira tira aad u yar oo weli ku howlan arrimaha guraacan oo dhicisoobay oo garala inuu waagu ku bariyay oo kamida ciidamadii uu soo abaabulay madaxweynihii muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga inay difaacaan dawladnimada inay difaacaan dimuqraadiyadda ilaaliyaan hantida shacabka iyo badqabkooda waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaa in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shakhsiyaadkii ka dambeeyay afgembigaas dhicisoobay hadday noqon lahaayeen xubno kamida ciidamada iyo hadday noqon lahaayeen shakhsiyaad siyaasiyiin oo aad loogu yaqaano falalka guraacan ee noocaas oo kale ah weli waa uu socdaa howlgalladii ama ciidamada operationkii ay ciidamada amnigu ku difaacayeen dawladnimada iyo dimuqraadiyadda waana socon doonaa waana guuleysan doonaa haddii alla idin hadalkan ayaa imaanaya xilli ciidamo ka amar qaata madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay isku dayeen inay xoog kula wareegaan xafiiska ra'iisul wasaare Rooble hayeeshee ra'iisul wasaare Rooble ayaa ugu dambeyntii ku guuleystay inuu tago xafiiskiisa isagoo ay garbaha ka taagan yihiin taliyaasha ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka gadoosan tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo oo caawa soo buux dhaafiyay isgoyska dabka ee Muqdisho mar kale warkan waxaa la diyaaraha wariyeena Hanad Maxamed Karaama ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kana mid ah ciidankii badbaado qaran ee dhawaan diiday muddo kordhintii uu sameystay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa isgoyska dabka ilaa aaga xaafadda Siigaale ee degmada Hodan ku soo bandhigay hub iyo gaadiid dagaal oo ay sheegeen inay ku doonayaan in filla Soomaaliya ay kaga saaraan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo sida ay sheegeen
saraakiisha hogaaminaysa ciidankan oo warbaahinta kula hadlay laamiga dheer isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u soo laabteen islamarkaasna ujeedkoodu yahay in ay garab istaagaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxay sheegeen in madaxweyne farmaajo uusan doonin in dalkan doorasho ka dhacdo sargaal lagu magacaabo geelac oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidankan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey ujeedkooda caawa maanta waxaan u nimid in aanaan dhaqasho damba laabo inaanaan meesha aan joogno inaan hor uga soconno maana aanaan dib uga laabo maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu laga dalbaday in aan gacanta ka soo qabanno waana ka soo qabanayna waxaa kaloo codsaha ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wax dambe oo uu saaka ka sugaa waa wuxuus arki dalkan iyo dadkan wax ka halaabaa ma jiraan caqabad waxaa ugu filan inta wakhtigiisu dhammaaday ee uu ku jiray oo aan ganacsi jirin oo aan horay gadaal loo socon oo qarax iyo shabaab iyo wax soo kordho dhibaataa maahane wax natiija uusa gaar alla hadduu qadaro waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha in uusan muddo dambe iyo mado dambe noo soo qaban oo uu naga hor wareego oo uusan na gaarsiin in aan mataqaanaa ii sheeg aan annagu kala dhimanno waxaa waaye maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa noo sheegay senator muuse suudi yalxu ilaahay khayr ha siiyo waxaa waaye soobax ku soo bixi maa sida uu noo sheegay soobax ku soo bixi maa gacanta waa in laga soo qabto waana ka soo qabanaynaa waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha beesha caalamkan aanu sheegaynaa wax eeda inaanan ku lahayn annagu waxaa waaye dalkan haddii wax dubayaan ama wax burburayaan waa waxaan kilomitir dhammayn waa inta uu isagu ku jiro waa inta uu saaka isagu ka bixi laya annagaana ka saarin haddii alla ogolaado waxaa waaye lama rabo intaas ka badan in laisku xadgudbo waxaan ka codsanaynaa bulshada soomaaliyeedna sida aynu garab siiyaan qof walba wixii ay awoodo dalkan inaan doorasho gaarsiino xoraan rabnaa ay nala gaarsiiyaan caawana laaban mayno asaana keenay horay meesha noo keenay dibna waxaa noogu celsay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble saakana waxaa waa garabkiisa taagan lahay waxaan ka codsaynaa inuusan saaka meeshaas naga celin inuusan nagula kala dhiman beesha caalamkana waxaan u sheegaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa waaye asagoo sharaf loo tegdiya laakiin asagoo sharaf daran ayuu ka tegayaa meesha uu joogo magaalada muqdisho ayaa haatan u muuqata mid saacadba saacadda ka dambaysa lagu halagelaysa jawi kale oo aan la saadaali karin halka uu ku dambeyn karo tan iyo go'aankii maanta ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble magaalada ayaa lagu hala gashay jawi siyaasadeed oo cakiran iyo sidoo kale dharaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda